والله ما قرن نقولين إساقو بالله أو طلع أنت جيد قرن الصوماليين والله بالله بعدا حتى وقوي قلب لنا نقولين تفا للسعوني إساقا أن حلاسة ما مسبحي إساقي حارنتها وي الشيء طلع وي مسبحي كلب دلوي مسبحي يهود دلوي مسبحي نجس دلوي مسبحي ديك يعب دلوي مسبحي بارا دشوي مسبحي أنا كسرفني كلب دلوي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسنا وعن ملك استعدادون كجوكتان سيدا أد مقليسين يموقال كادو جيدين وانكا تقانان اللغو برتي حمانتا اي عايدة ودبع عسر وعاينيا سومالي لان اسلامر كان ديدن مدح بنانيدا سومالي لان ييني نقوتي دولاد كغوستي سوماليا اسلامر كان كو باقيا عولاد كو باقيا waxaad maqlayseen asagoo aflaga deynaya madaxweynaha hada Soomaaliland mudane Muuse Bixi waxaad maqli doontaan asagoo caynaya beesha Isaaq isla markaana nasabadooda caynaya kuna tilmaamaya inay Ingiriiska waxaan afkiga soo marin karin idinka ayaa maqli doona asaga ayayna sheegi doonaa oo ku tilmaamayo hadii awowayaalkiis buuryada Ingiriis dhuuqi jireen anaga awowayaalkayo baaruuda iyo buladka sida loo yaqaanaan iyo sida nafta loo bixiyo ayaa yaqaanaan waxa kaloo la yaab leh inuu amray oo uu fatwooday oo uu yiraahday lagu jihaado hana la dilo askari kasto u shaqeeya Muuse Bixi ciidamada Muuse Bixi ha lagu jihaado haddaad aragtaan nin ka amar qaadanaya Muuse Bixi waajib waxa idinku ah inaad ku jihaadaan meel kasta joogtaan shab Soomaaliya askari labisan oo kula Muuse Bixi baan ka amar qaataa haddaad aragtaan في سبيل الله يقول جهاد أرد الله يدلك كد معي. taasi macnaheedu waa maxay askari kasto Soomaaliland ah inuu dhigiisa banaystay ninka noocaas ah oo qabiiladii kale Soomaaliya hore u soo caayay oo ma taqaana ummadii Ilaahay dhan nafta u keenay oo 24 saac kaamira la wareegaya ayaa horta Soomaaliland gobonimay sameeysay waxba maysan yeelin waxayna yiraahdeen ku soo dhawow dalkaada oo imow markuu dalka yimid oo la rabay inuu si sharaf leh ku joogo ayuu wuxuu bilaabay caay iyo aflagaado wuxuu bilaabay inuu la wareego live asagoo ka faa'iideysanaya fursadda oo dadka ku handadayo waa lagu daawanaya 4,000 baa kugu jirta 5,000 baa kugu jirta waxaan leeyahay horta dawladda Soomaaliland xaq waxay u leedahay cid kasta oo amnigeeda khalkhal gelisa isla markaana lid ku ah shuruucda dalka ka jirta inay gacan bira ku qabato sidoo kale waxa Soomaaliland aan faraya aan leeyahayna ka codsanaya ninkaas inay dhaqan celis u sameeyso oo balmiir ku soo dejiso oo waxaan laga tirtiro uu ku noqday waxa uu ku shaqeysto mudane shaqeysta ma waa nin lagu shaqeystay waxaana runtii la oran karaa waxa dad u kaba galiyay waa la ogyahay oo ma taqaan Hargeysa ugu durbaantumay isla markaana ka dhoofay anigu shakhsiyan ma jeclay inaan qof wax ka sheego laakiin arintani runtii waa arin aan loo dul qaadan karin dadka Soomaaliland ku eedeynayana arrimaha noocan oo kala ah oo daba casar u tumayana daba casar horta ogaada oo dhageysta oo wuxuu dadka ka sheegay dhageysta warciidu cafiye ma jirto shakhsi mu cafin hatta aniga in la hadlayo weligay magaciisa ma soo hadal qaadin shakhsiyadeeda wax biuga sheegay aniga ma aqaan daba casar weligay isma arkin live kuma aan kulmin meel uu ku jiro waxba kuma darsanin saasay tahayna hatta aniga qudayda ugu xad gudbay ciidii og ayaa jirta marka waxaan u leenahay ummadda Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka cabsano xumaanta iska reebno qof xumaan wadayaan loo sacbatomin wuxuu caayay awowyaal wuxuu caayay qabaa'ildan wuxuu khalkhal galiyay amaanka wuxuu fatwooday in askarta la laayo arrimaha noocaas oo kalena arrimo loo adkeysan kara ma ahan mana ahan macquul igama noqonayso daba casar inaan taageero waxaan ogahay xumaantiisa ayaan ogahay waxaan ogahay beentiisa ayaan ogahay waxaan ogahay wax khaldan uu sameeyay dhinaca kale waxaan aaminsanahay Soomaaliland waa dawlad jirta dawladdaasi xaq waxay u leedahay inay xukunto inay garaacdo inay wadanka musaafiriso cid walba ay u aragtay inuu amaanka khalkhal gelinayo saas darteed arin u taala ma ahan social media arin u taala ma ahan Soomaali weyn arin u taala ma ahan Somaliland dadka ku nool xukuumadda Somaliland ciidankeeda booliiskeeda amnigeeda wixii ay arkaan xaq waxay u leeyihiin inay talaabo sharci ka qaadaan saas darteed daba casar walaalayaal afkiisa ayuu isku xiray cid ka amaan gashay ma jirto wuxuu caayay qabiilo wuxuu caayay culumo wuxuu caayay shakhsiyaad wuxuu caayay waxa uu cafiyay ma jirto
maantana wuxuu rabaa intuu hargeysa tagay oo si goobannimo loo soo dhaweeyay wallahi xaqiiqatan Soomaaliland waa dad dulqaad aad iyo aad u fara badan waa dad xukuumadooda iyo shacabkooda dad fiican ah waxay siiyeen fursad aad u dheer waxa aniga jeclaan lahaa markuu madaarka ka soo dego in la yiraahdo saaxiib dhageyso mobilkaadana keen live dambe adoo meelaha la wareegaysna kuma mari karno danta aan Soomaaliland u soo gashay ka qabso hadii kale dib u laabo halkaas ayay ahayd laakiin de maamulku waa maamul goob ah qof walbana waa xor aniga Soomaaliland waxaan ka imaaday October ayaan tagay waan ku soo dhulka soo maray Hargeysa ilaa waxaan tagay Garowe oo dhulka maray wax dhibaato aan kala kulmay ma jirto cagsiga waxaan kala kulmay soo dhaweyn waxaan kala kulmay dad fiican waxaan kala kulmay dad akhlaaq leh oo fiican marka reer Hargeysa way ku mahadsan yihiin inay markii hore ninkaas ma aragtay san wax dhibaato u geysanin laakiin markii uu xadgudbay oo uu caay bilaabay asagoo jiifa sariir oo la wali dilay ayuu wuxuu oranayay gabdhaha Soomaaliland xataa mudin gabdhaha isaaqa waxa fuula Ethiopian ayaa fuula ayuu dhahay subhanallah afkiisa ayuu saas ka lahaa marka waxyaalaha waxa la yaab kale waxay kamid tahay in arintaasi uu khalad ku galay midda kale wuxuu og yahay wuxuu la wareegayaa arrimo xasaasi ah marka in la xiro oo dadka laga qabto horta waa arrin fiican waxaana maamulka Soomaaliland leeyahay ninkaas soo dejiya waxaad geysan u aqli celiya akhlaaq u sameeya ku soo celiya dhinaca kale waxaan rabaa inaan baaq uga diro walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan walaalayaal xilli adag ayaa lagu jiraa xumaanta ayaa fara badatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaan ka cabsano adduunkan waa laga tagaya inaan akhlaaqda wanaagsan ee islaamka aanu faafino walaalayaal akhlaaqda wanaagsan jannada ayaa lagu galaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wa khaliqin naasa bi khuluqin hasan dadka waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa qulu lin naasi husna dadka wanaag u dhaha maanta walaalayaal wanaag lama sheegayo qofka xumaanta sheegaya loo saabatumaya macquul ma ahan يعني ninkan waxa lagu bartay iyo ma taqaana waxa heerka la gaarsiiyay midna maahan midda kale waxaan rabaa inaan dadku sheego qof xumaan wada waliga ha garab istaagin sidoo kale waxaad ogaataa qofka taageera qofka xumaanta wada iyo kan sheegaya inta waa isku mid marka naftaada ilaasho sidoo kale waxaan dadka ugu baaqay mar labaad Soomaaliland yaan lagu mashquulin waajibkeeda ayay gudatay waana uga mahad celinaynaa inay gacan bira ku qabato cid kasta oo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo isnacayb dadka ku dhex abuuraysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan inuu nabad iyo amaan siiyo isla markaana Soomaaliland barakeeyo Soomaalida kala barakeeyo meel walba ay dadkeena joogaanna barakeeyo isla markaana dadka noocyadaas ah aan la siininin fursad la siininin lagu dhageysto inay ku hadlaan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaad noqotaa mid wanaaga taageera ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku taageero wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh